السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا عبد الرحمن سليمان كسودو برنامجka Rabadaanta iyo nolosha. Sidee ayaad uga dhigi kartaa bishan Rabadaan, bishii Rabadaan ee ugu fiicnayd ee abi ku soo mar. صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 Intaanu bilaabin iyo ogolow inaan kugu hambaleeyo bisha barakeysan ee Rabadaan. Rabadaan Kariim. Ha adiga dhankaaga eegin Rabadaan Kariim. Aanu bilowna mawduuceena maanta oo ah sidee aad uga dhigi kartaa bisha Rabadaan, bishii Rabadaan ee ugu fiicnayd ee abid ku soo marta. haddaba waanu qodobeyn doonaa kointiina qodobada geni waxaa loo baahan yahay inay isweydiiyo 3 su'aalood. maxaa Rabadaantii hore kuu qabsoomay? maxaa se kuu qabsoomay? waa labada su'aalo hore adigaan ku weydiinayaa, adiga ayaana ka jawaabi doona. Su'aasha saddexaad ee inuu ka jawaabi doono waxa weeyaan maxay waxyaabahaas kugu qabsoomi waayeen see kugu qabsoomayaan bisha Rabadaan. haddii aad diyaar u tahay inay bisha Rabadaan ku noqoto bishii Rabadaan ee kugu fiicnay ay soo martaa oo aad uga faa'iideysato sida ugu wacan muuqaalkan adiga lagugu talagalay. inuu kuwaad waxa uu leeyahay saaxiibkayo waqtiga maxaad isku tihiin. hayaabin waqtigu laba mid ku noqonaya, ama curad ama cadow. ama curad ayuu kuu noqon oo waad koolkoolin oo adiga ayaa ilaashan, ama cadow ayuu kuu noqon oo noloshaada ayuu dili. waqtigeenu waa nolosheeda. waa ka xasan albasri lahaa bini'aadanku muxuu yahay keliya waa waqti isku tegey, waa shalay maanta iyo beri, oo waad koolkoolisaa oo ilaalisaa oo noloshaada ayuu kuu faa'iideeyaa horumar ku sameeyaa. labadaba aynu qayaxno. qofkuu cadowga ku yahay waa qofka waqtiyadiisa ugu badan muuqaalo aan faa'iido lahayn ku daawada, waqtiyadiisa ugu badan waxqabad aan faa'iido lahayn sameeya, waqtiyadiisa ugu badan goobo aan faa'iido lahayn jooga, waqtiyadiisa ugu badan saaxiibo aan faa'iido lahayn la jooga. ama midkan kale uu yahay curadka, waa mid waqtiyadiisa kaga faa'iideysta meelaha wanaagsan, meelaha khayrka iyo waxyaabaha anfaca isaga iyo bulshadiisa aakhira iyo adduunka. meel yaroo fudud aan kaa tuso saaxiibkayo. miyaad doonaysaa inaad ogaato qiimaha sanad? weydii arday ka hadhay fasalkiisii sanad. miyaad doonaysaa inaad ogaato qiimaha saacad? weydii qof riyadiisu hayd inuu u dhoofo dal qalaad oo diyaaradii kadib dhacay saacad. miyaad doonaysaa inaad ogaato sikinka qiimihiisa? weydii qof orodyahana oo intaasoo mayl ordayay kadibna lagaga guulaystay sikino. miyaad doonaysaa inaad ogaato qiimaha bisha? waxaad weydiisaa hooyo 8 bilood rajaynaysay inay noqoto hooyo, bishii ugu dambaysayna noqon weyn. sidaa daraaddeed waxaasoo dhan waxa inoo muujinayaan in waqti kasta, hadduu sikin yahay, saacad yahay, bil yahay, sanad yahay, uu inoo muhiim yahay. sidaa daraaddeed saaxiibkayow waqtigaaga ha ka dhigan cadowgaaga ee ka dhigo curadkaaga. saaxiibkayow qodobkiina labaad wuxuu leeyahay qorshayso. qorshuhu waa muhiim. haddii aanad lahayn qorshe waxa aad ku shaqaynaysaa qorshaha qof kale. wax walba adduunyadan waxay ka bilaabmaan qalin iyo buug. qalin iyo buuggaaga aad haysid ku qor qorshayaasha ugu muhiimsan aad rabto inaad bishan samayso. ku qor caadooyinka ugu muhiimsan ee aad rabto inaad bishan iska beddesho. ku qoro xasanaadka iyo waxyaabaha khayriga eed rabto bishan inay ilaahay ugu dhawaato, aanad uga mid noqoto kuwa naarta laga horeynayo ilaahay naga horeeye. tusaale aynu soo qaadana. iminka haddii aan tago meel basraaca ama wada oo aan istaajiyo baskaasi waxa uu weydiinayaa waa halkeen ku geeya. haddii aan idhaahdo maya meel lama tagayo, dee maxaa waa ii istaajisa ayuu odhanaya. sidaa daraaddeed waxa uu la mid yahay qofka bilaa qorshaha ee keliya u soo toosaya inuu sameeyo dunidu waxa ay ku qaabisho, ee aan lahayn qorshe saxan oo sugan. sidaa daraaddeed
qorshayso. wax walba waxay ka bilaabmaan qalin iyo buugaaga. maanta waxa ku keenay halkan caadooyinkii iyo qorshayaashii aad soo lahayd sanadahaad adduunka joogtay. berri ciddaad noqonayso iyo halkaad tegayso waxaa sheegaya qorshahaaga maanta iyo caadooyinkaaga maanta iyo ficiladaada maanta. kana saddexaad saaxiibkay waxa weeye bixi qiimaha isbeddelka. isbeddel ma imaado ilaa aan sameyno ficil. qorsho waa la yeeshaa laakiin qorshahaasi wuxuu u baahan yahay fulin. haddii maanta dhan aad muuqaalo noocan aad daawato kadibna qorshayaal aad samaysto laakiin aad ficilka la imaan weydo ma jirto wax isbeddelo imaanay. sidaa daraaddeed ilaahay qur-aanku waxa uu noogu sheegay ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim. sadaqa allahu alcadiim. ilaahay ma bedelo cidna ama qoomna ilaa ay beddelaan waxay ku sugan yihiin. sidaa daraaddeed saaxib ma jirto natiijo kugu imaanaysa fadhiga ilaa adigu aad samayso isbeddelka. waxa aad rabto isbeddelkeeda samee. caadooyinkaad rabto inaad iska goyso way kugu adkaanaysaa marka hore inaad iska goyso laakiin tartiibi. caadiyan qodobkeena afraad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan samayso saaxiibo wanaagsan. marka uu qofku caado samaysto ee uu keligii sameynayo wax laga yaabaa ayaama ka bacdi inay ku adkaato, laakiin markay dad si wada jiro u sameynayaan caadiyan qofka kale ayuu xasuusinayaa si ay u dhammaystiraan ballantooda.